kulanti waxaan wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qaayale sida tooska ah wadan looga daawanayo halkani waa Al-Bushra Media Production oo aad uga barateen barnaamijyo iyo warar xogogaal oo ku qatoma xaqiiqada kuwaas oo ka turjumaya carri edeg dhulka afka Soomaaliga laga hadlayo caalamkaba qodob wareedkeena maanta daawadayaal waxaanu ku soo qaadan doonaa maxaad kala socotaa xiisadda cirka isku sii shareeraysa ee u dhaxaysa dalalka Itoobiya iyo Masar ee ka dhalatay saami qaybsiga biyaha wabiga Niilka xiisadani waxay salka ku haysaa dhismaha dambiyoodka weyn ee Abeey ee dhismihiisa ay ku hawlan tahay dawladda Itoobiya dawladda Masarna waxa ay dhankeeda u aragtaa in dambiyoodkani uu yareynayo xaddiga biyaha ee u soo gudbi jiray dalka Masaarida taasina ay ciidi gelin doonto nolosha malaayiin Masaari oo noloshoodu ku tiirsan tahay biyaha wabiga Niilka oo tiir adag u ah adeegyada nololeed ee bulshadaasi mahadsanid Cabdisamed Maxamed Axmed waa Masaari beerola ah waxa uu ku tilmaamay inay arintaasi ay burbur iyo halaag nololeed ay soo wajahayso gabi ahaanba خراب على الكل haddaba sanado dhowr oo heshiisyo dhowr ay soo galeen dawladaha Masar iyo Itoobiya waxa ay keentay inay ku wada noolaadaan saami qaybsiga biyaha wabiga Niil balse waxa heshiisyadaasi oo dhanbar kuma taal ka dhigay dhismaha dambiyoodka Itoobiya ku hawlan tahay kaasoo isu bedelay dagaal afka oo qarka u saaran inuu isu bedelo dagaal ciidan oo isku farasaaraan dawladahaasi dhaamkan oo qorshaha dhismihiisa lagu magacaabay hanaanka dib u curashada nolosha reer Itoobiya ayaa ku fadhiya masaafo dhuleed oo cabirkeedu dhan yahay 1874 kilomitir square xaddiga biyaha uu kaydinayana lagu qiyaasay 10 milyan iyo 200 oo kun oo mitr kuyu halka xaddiga tamarta biyaha uu dhalinayana lagu qiyaasay 6.45 gigawatt kaasoo ka dhigaya dambiyoodka ugu weyn ee qaaradda Afrika halka dambiyoodyada caalamka guud ahaanna uu ka galayo kaalinta toddobaad William Davison oo xeel dheer ka tirsan kooxda ka faalloota mashaqooyinka caalamiga ee lagu magacaabo International Crisis Group waxa uu sheegay in qorshahani uu yahay mashruucii ugu weynaa ee xukuumadda Itoobiya ay fuliso kaasoo miisaaniyadda dhaqaale ee ku baxaysa lagu qiyaasay 5 bilyan oo dollarka Mareykanka haddaba inta aynan hoos u gelin xiisadda saami qaybsiga biyaha wabiga Niil ee u dhaxaysa Itoobiya iyo Masar aan dib u jaleecno nolosha bulshooyinka uu saameeyo qulqulka biyaha wabiga Niil haddaba wabiga Niil oo mara 12 dal oo kala Tanzania Uganda Rwanda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Kenya Itoobiya Eritrea labada Suudaan iyo Masar ayaa tirada dadka uu saameeyo nolosha wabiga Niil ee ku nool dalalkaasi lagu qiyaasay 280 milyan mahadsanid Ali Daahir Maxamed Boos qulqulka laagaha biyaha wabiga Niilka ayaa ka kooban laba qaybood waa mid koobaad laagta biyooda ugu weyn ee biyaha wabigani ka yimaado ayaa mid harada taana ay dalka Itoobiya taasoo quudisa 85% biyaha wabigani mara halka ay laagta ka timaado harooyinka ku yaal bariga Afrika ee ugu weyn tahay harada Victoria u dhaxaysa dalalka Tanzania Uganda iyo Kenya ay ka yimaadaan 15% waxaana labadaasi laagood ku kulmaan caasimadda Suudaan ee Khartoum marka uu qulqulka biyaha wabigu dhaafo dalkaasi oo uu sii gudbo dalka Masarna waxa xuduudda u dhaxaysa Masar iyo Suudaan ku yaal harada isku ama harada lagu magacaabo Jamal Abdi Nasir taasi oo ah tamareeda ay isticmaalaan dadka reer Masar isla markaana ay ka helaan dab laga dhaliyo biyaha haddaba qorshahan ay dawladda Itoobiya kaga dhisayso dhaamkani soo xuduudeeda u dhaxaysa dalalka Itoobiya iyo Suudaan ayaa dawladda Itoobiya u aragtaa mid buddig u ah qorshaha casriyeynta nolosha dhaqan-dhaqaale ee bulshada ku nool dalkaasi taasina waxay fududeyn doontaa in malaayiin Itoobiyaan oo aan hadda helin tamarta korontada oo ku filan ay heli doonaan iyadoo ay dab la'aanta dhinaca korontadu tahay mushkiladda ugu weyn ee haysata bulshada ku nool dalkaasi Itoobiya arrinkani waxa kale uu fududeyn doonaa in dawladda Itoobiya ay dibadda u dhoofin doonto iltamareed koronto oo ay gaarsiin doonto dalalka jaarka halka ay dawladda Masaariduna u aragto masiibo nololeed oo soo wajahaysa nolosha bulshadooda maadaama ay nolosha dadka reer Masar 90% ku xiran tahay ka faa'iideysiga biyaha wabiga Niilka haday ahaan lahayd noloshoodii hore qadiimiga ahayd iyo midda dunida casriga ah haddaba arinta xiisaha mudan ee walwalka iyo walbahaarka ku haysa dalka Masar oo inta badan ka faa'iideysan jirtay qulqulka biyaha wabiga Niilka ayaa ah haddii ay 7 sano gudahood Itoobiya ku dhamayso dhaamkani waxa meesha ka bixi doona 22% ay Masaaridu korontada ka dhalin jirtay halka ay 3 meelood oo meel dhulbeereedkii dalka Masarna baabi'i doonaan oo u dhiganta 3% haddii ay 5 sano ku dhamayso Itoobiya dhismaha dhaamkani waxa la waayi doonaa boqolkiiba 56 biyaha ay Masaaridu dabka ka dhalin jirtay iyadoo ay gabi ahaanba baabi'i doonaan dhulbeereed u dhigma boqolkiiba 50
sanad cabdi samed xiisada u dhaxaysa dalalkaasi Masar iyo Itoobiya waxay walwal badan ku abuurtay dalal badan oo kamid ah qaaradda Afrika iyo beesha caalamka arinta ku soo koobayna warbixintaasi fadlan ha ilaawin subscribe ama like si aad ula socoto wararka Al Bushra Media Production oo maalinla waana guud ahaan bahda Al Bushra Media Production oo idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh